السلام عليكم أصحابتي ذا وكسو داهي إن سبر كاس أركتان أن رياكشن كسو بحيو أو كساب سنة ورئيسي وقادا ينك عنك أو ليرهدو ردوان إساق تجابي جعل كذا نكسو عن بحي دابا رياكشن كيغا محو yahay labadaas gabdhood aragtaan ayaa rabaa fikirkeyga iyo waxa tala ah oo aan ka bixinaa inaan ka sheego halkan ama videogan kusoo koobo number 1 horta gabadha la yiraahdo ayaan oo la khiyaamay waxa weeye horta way kugu dhacday walaal abaay macaan way kugu dhacday dad la khiyaamana horta adigu ma ugu horeynin waa way dhacdaa adiga gabar saaxiibta oo ku khiyaanto oo ninkii ka dhacday oo reerka ka burburisa ka sheekeynaysa waxa rina anaga gabar kula dhalatay oo hooyaday aabaha dhaleen oo adiga caawinaysa oo gurigaada isku soo dhaweysay ku noolaysa waxbarasho ka bixinaysa jaamacad dhiganaysa in reerkaada haddana inta kusoo noqoto burburiso oo ninkaadi iyo hoolihii soo gasho waa aragna iyadana tii kula dhalatay oo isku dhiigii dhacankeedana hooyada dhasha waxba sameynaa soo haddaba maxaa ka filaysaa gabar islaameed soo horta number 1 gabadhaas waxaa leeyahay wax walba way kugu dhaceen nabar xaq daro allah kaaga dhigo way kugu dhacday laakiin waxa markay dhacaan waxaa la rabaa way forward maxaa la sameeyaa number 1 gabadhaas waxaan siinayaa talo ah horta stop inaa su-aalaha why aa u samaysay maxaa u samaysay aa kusoo celcelinaysa horta inaad joojisid qoftan way samaysay waa bini aadan naf iyo shaydaana ka xoog batay marka horena umay qalmin oo wanaaga u samaysay dhan umay qalmin qof u qalanta maahan adna maada ogeen oo waa aamintay laakiin iyada ayaa ahayn qof u qalma wanaaga farada badan u samaysay soo dhaweynta soo dhaweysay naxariistaadii inaad noloshaada u furfurtay xaduudahaadii aad u furfurtay waxaas oo dhan inaad u samaysid umaysan qalmin qof u qalanta ma ahayn sababtoo aday u qalanto waxay samayseen soo marka adiga maanta maxaa kula gudboon inaan wax walba oo dhaca mistake kasta wax baa laga bartaa soo mistake baad samaysay adiga khalad weyn baad samaysay oo ah waxaa la rabay gabadhan in aad marka horeba haddii xataa wanaag aa u sameynaysid ama saaxiibtinimo ugu sameey ama wanaag kale oo adiga naxariistaada ugu sameynaysid wanaag kasta u sameynaysid waxaa la rabay inaad iska ururiso xaduudo aad samaystid markaa leedahay guriga cuntada ayadaa karin jirtay oo cuntadeeda macaan iyo waxaas u karinayay iyo ninka u sheekeynaysay iyo dukaanka ii gadi jirtay iyo kan anigana mashquula waxaas oo dhan markaa leedahay waa weakness adiga dhankaada ka jiro waayo oo shakhsiyadaada la xiriirto sababta ah xaduudo ma lahayn personal boundaries waxa la dhahay jirto taas ayaana ku seegtay oo waa khalad kaa dhacay qof bilaadan baa tahay adiga maada filanaynin maada garanaynin personal boundaries wax la yiraahdo xaduud shakhsiyadeed oo qofka bilaadanka si kastoo saaxiibo u tihiin si kasta oo walaalo u tihiin adiga waxaa la rabaa inay xaduud leedahay xaduudda waxaa weeye haddaa qof caawinaysidna intii awooddaadaad caawinaysaa haddii qof aad soo dhaweynaysidna xaduud baa samaysanaysaa xaduudda waxaa weeye nin baa ku qaba guri baa deganeed dee inay naagtan idin soo dhex gasho oo idinla kaftanto oo ninkaada la kaftanto oo la sheekaysatay waa xaduud la-aan of course inaa xaduud u yeeshay ahayd asagana aad ogeysiisid xaduudahaada iyo xaduudaha labadiinaba iyo qofka kale oo saddexaad sida aa ula macaamil lahaydeen waxaasoo dhan inaa marka hore barateen bay ahayd laakiin saan ka dareemaya hadda life skillskaas oo dhan baa kaa maqan dhima lahaa cashiradeeda iyo kalaaskii oo kusoo biiri kartaa haddaba hadda currently talada aan ku siinaa waxay tahay walaal macaan canuufta dib ulaq tan waa kugu dhacday samiri iimaan allah ku siiyo bini aadam weeye qof kasta oo bini aadan wax walba ka filo waxaa weeye in adiga saa ugu listay ama saa ugu listay inaysan kugu hambeenin horta taas way dhacdaa soomaaliyana ka dhacdaa abaa la-aantaas iyo garawshya la-aan in qofka markuu qalad sameeyo uu si niid ah uu qaladkii uga soo noqdo in qaladkiisa uu qarto waxaasoo dhan anaga soomaali haddaani bulsho soomaalida naguma soo aabin mana naqaano qofkaasoo khaldamay oo qalad galib haddana isla qumay sida gabadha hadda markaan videogaas fiirsaday aan ka arkay waxay tahay way isla quman tahay al-aanana qaladkii si daba ah oo honestly ah uguma apologize garaynayso of course why markii la weydiiyay reasonka u sameysay is obvious waxay kuu quuri weyday nolosha quruxda badan adiga haysatay inaad xaas tahay inaad qof laanib tahay wax bartay tahay nin wanaagsan inuu qabo guriga aad kusoo dhaweyso quruxda badan everything ayaa jealous ka ahayd ama envious ka ahayd then way kuu quuri weyday markay kuu quuri weydayna waxay damcday oo shaydaanka u sahlay in ay kaa dhex bixiso ayada ay kaala wareegto nolosha sidaas waay soo marka su-aashaada wide aa kusoo celinaysa haddaa aniga kuu jawaabo waxaa weeye gabadhaas quuribaa baa ku dhacay noloshaada ayay ka xumaatay kadib markii adiga noloshaada u ogolaatay oo soo dhexgelisay way kuu quuri weyday soo markay kuu quuri weyday maxay samaysay
she used her waxay isticmaashay natural tricks ki ilaahay dumarnimo u dhaliyay bay isticmaashay jaaniskana way ka faa'iideystay oo ah waqtiga adiga mashquul noqotay haddaba marka all in all adiga maxaa kula gudboon abaa waxaa kula gudboon mistakeaada inaad wax ka baratid khaladka aad adiga samaysay inaad wax ka baratid gabadhaana way kugu samaysay xiriirka u jar su-aal dambena ha weydiinin banaanka ka mar ya kasoo kaba wixii ku gaaray mida kale oo ah ninkana waa asna doqon buu ahaa oo sababtoo ah asagoo xaaskiisa ay joogto si kasta mashquul hata u ahaato waxaa ahayd inuu adiga kula hadlo oo kaala hadlo arrinkaas oo open communication kula sameey ahayd muu sameyn was so stupid inuu naa kala damaaciyo oo gurigiisa iyo hoygiisa ku suganna dee wuu ku khaldana maangaab buu ahaa waa wax meeshaasna qadar bay ahayd oo ninkaas inuusan kuu qalmin oo sidaas kugu dhaafo ayaa kuu qorneyd sorry koola iga soo dhaxgaa ninkaas ninkuu qalmay muu ahayn nin stupid ah oo maangaab ah oo caqli lahayn oo ignorant buu ahaa sababtoo ah ilaahay baa adig ku jecel oo ku badbaadinaya daacadnimadaadii wanaagii aad samaysay trusthoodkaadii everything aa lagugu badbaadiyay oo ninkaas ninkuu qalmo ma ahayn inuu ku dhaafo banaanka kaa maro asaga iyo khashinkiisa oo ay ku dhaafaan horta adiga ku bishaarayso khayr bay kuu tahay ma fahamte labadoodaba gabadhana saaxiibtinimada adiga siisay oo maysan qalmin oo waxay ahayd doqon bay ahayd ninkana ninkaada ama nin adiga kuu qalmay muusan ahaynoo dee intaas hadduu ilaahay kaaga reebay waxaa leeyahay ku bishaarayso in horta ilaahay ku jecel yahay ilaahayna kaa badbaadiya xumaan intaas ka weyn inay kugu dhacdo qalbigaadana sidaas ku samirsii sometimes anaga bil-aadan aan nahay waxyaabo badan oo aanan xumaan u malaynayno oo wanaag noo ah waa jirto ilaahay noog saalaano kale wax xun adaada reer burburay iyo ninkaadii oo lagaala wareegay iyo gabar ku xumaysa ka sheekeynaysa ina ilaahay uu adigu kugu badbaadinayo oo khayr kugu tahay baa laga yaabaa waana sax sababtoo ah nin adiga gurigaada si kasta haddaa u mashquulsan tahay wax kasta inuu kula hadlayd kaala hadla topigas oo kow kula hadlo laba kula saddex kula hadlayd muu sameynin sooma then means nin kuu qalmi ma ahayn taas horta sidaas uga samir qalbigaadana ku qawiso mar dambana bulsho dambe aniga talada aan bixinay finalka waxay tahay walaal macaan cashar ka baro noloshaada dib u dhiso of course dhaawac baa kusoo gaaray dhaawacaada waqti adiga healing ku sameysid ama recovery ku sameysid qaado dhakhaatiirta la xiriir psychological effect baa kusoo gaartay ama mental health issue baa kusoo gaartay dhakhaatiirta psychiatrist la xiriir isdaweey healing process qaado ilaahay u noqo wax badan u mahad celi sababtoo ah noloshaas nolol kuu qalantay ma ahayn oo burburtay ama gurigaas burburay hana ka hadlin dib dambena social media ha u imaanin casharna ka baro noloshaada iyo shakhsiyaadkaada iyo xaduudahaada saa u dhisan laheydna baro casharo fara badan oo aniga aa bixiya jirta haddaa igu soo biiri kartid oo messagekan kusoo gaarana waa kusoo dhaweyna haddii kalena taladeyda gabagabada waxay tahay walaal macaan noloshaas ninkaas iyo gabadhaas kumaysan qalmin noloshaasna umaada qalmin wax ka weyn oo ka qurux badan oo ka fiican baa u qalantaa kudos noloshaada cashar inta ka baratid hore u soco abaay macanta ma fahamte hore u soco mar dambena gabadhaas ha la hadlin why question ha weydiinin bye bye kudos